السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا كلان كلا iyo xeer kale iyo taxanaheena xeerarka nolosha. Xeerka aynu kulankan kusoo qaadanayno wuxuu ku saabsan yahay maxaa qaanuun u ah, maxaa xeer u ah hogaamiyaha guuleystay ama hogaaminta taabagalka ah. Dunida mowduucyada ugu badan ee wax laga qoro meel kasta oo dadku ay ku nool yihiin waxaa ka mid ah mowduuca loo yaqaano ama topiga hogaaminta la yiraahdo. 2015 oo kaliya waxaa la yiraahdaa 4 buug baa maalin kasta la qori jiray ama la publish gareyn jiray oo ku saabsan hogaaminta. taasoo markaa muujinaysa dadweynuhu ama guud ahaan dadyoogu meeshay doonaan ha ku noolaadaan, dalkay doonaan ha ka joogaan dunidan aynu ku noolnahay, baahida ay u qabaan helitaanka hogaamiye suuban nolosha ay ku nool yihiin mid ka wanaagsan wax weeyaan gaarsiin kara iyo dadaalka loogu jiro sidii hogaaminta taagan ama xaaladda hadda ay ku taagan tahay wax weeyaan aqoonta hogaaminta ee dadyoogaasi ay u sii kobcin lahaayeen oo mowduuc cusub wax weeyaan looga sii qori lahaa iyo baaritaano hor leh. Ilaahay subxaanahu wa tacaala hogaamiyihii ugu wanaagsanaa ama ugu saameynta badnaa ee nolosha uu soo diray wuxuu ahaa Nabi Maxamed. Madow iyo cadaan, muslim iyo gaal waa la isla waafaqsan yahay in Nabi Maxamed uu yahay hogaamiyihii ugu saameynta badnaa ama hogaamiyaha ugu weyn ee dunida aadamaha soo maray. Hogaamiyana marka la qiyaasayo ama la cabirayo muxuu ku yahay hogaamiyahaasi hogaamiye weyn ama hogaamiye guuleystay, waxaa lagu cabiraa maaha hantida uu haysto iyo sida uu u eg yahay iyo inta waree laga qoray iyo inta wax weeyaan sawiree laga hayo iyo wax weeyaan dhaqaalaha uu sameeyay ama wax weeyaan arrimaha ma hal shay baa la isku waafaqsan yahay dunida oo dhan waa inta qof ee qalbigooda iyo caqligooda iyagoo adeegsanaya ku qancay fariinta qofkaasi wado. hogaamiyaha waxa lagu cabirayaa waa intaas oo kaliya dadka followerska ah ee la socda ee ku qanacsan maaha markuu hor taagan yahay kuwa ka cabsanaya ee gacanta u taagaya ama madaxa u lulaya, marka uu ka maqan yahay hadduu nool yahay iyo haddii uu dhintaba isagoo la joogin dadka ku qanacsan fikradiisa iyo fariintiisa baa la yiraahdaa haddii ay dadkaasi badan yihiin oo followerskaasi ay bataan waa successful leader qofkaasi. haddaba Ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadda 159 ee ka mid ah suuradda Al-Imraan buu wuxuu inooga warramay xeer iyo qaanuun hogaaminta Nabi Maxamed ka dhigtay mid taabagash inuu noqdo ka ugu weyn ee dunida soo maray. cid kastoo inaga naga mid ah oo wuxuun hogaamisaana ay tahay xeerka inay qaadato. Ilaahay wuxuu leeyahay fabima rahmatin min Allahi linta lahum walaw kunta faddan qalidha alqalbi lanfaddu min hawlik. naxariista Ilaahay ayaad ugu dhibirsanaatay oo ugu dabacsanaatay oo qof akhlaaq leh oo suuban oo aan agtiisa laga didin ee la soo dugsado aad ku noqotay haddaad mid laga didayo oo ka kan oon dadka dhageysan oon dabeecad lahayn oon dad isku wadi karin oon dad la tashanayn haddaad ahaan lahayd mar hore dadku agtaada ka yaaci lahayd. aayadda Ilaahay wuxuu ku sheegayaa yas fariinta aad sido iyo diinta aad wado oo weyn oo kaliya kuguma filna inaad dad ku qanciso aad noqotid hogaamiye wanaagsan. laakiin Ilaahay wuxuu leeyahay adigoo Nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam haddana haddii aanad dhaqan suuban lahayn, haddii aanad akhlaaq wanaagsan lahayn, agtaada waa laga didi lahaa ciidana kuma soo dhawaateen, fariintaadana ciidama qaadateen, cid ku rumaysana lama heleen. waxaanu xeerkan markaa ka baranaynaa qof kastoo inaga mid ah ka ugu weyn ee dawlad iyo malaayiin qof hogaaminaya, kuwa shirkado waaweyn hogaaminaya, kuwa xafiisyo ka sokeeyo oo kooban maamula, kuwa golayaal waxa weeyaan u talinaya, kuwa xisbiya maamulaya, kuwa markaad soo daadegto 4 qof 5 qof hogaaminaya. heer kasta oo ay hogaamintu tahay waxa kiiga waxa furaha u ah in hogaamiyahaasi uu guuleysto qaanuunka rabbaaniga ah ee weligiina jiray imikana jiray hadhowna jiri doonana in la baraya wax weeyaan in hogaaminta waxa furaha iyo kiiga iyo wax weeyaan laf dhabarta ay tahay wax weeyaan qofka hogaamiyaha inuu ahaado qof dabacsan, qof akhlaaq wanaagsan, qof dadka dhageysta, qof dad isku wad leh, qof dadku ay agtiisa ku soo ururaan ee aanay ka didin, qof ay dadku ku soo hirtaan ee aanay ka hayaamin, qof la dugsado oo aan laga didin inuu ahaado ayaa wax weeyaan ay inoo muujinaysaa fariinta kasta oo wanaagsan oo wadid, wax kasta oo wanaagsan oo aad ka shaqeynaysid iyo siyaasad wal iyo qorshe wal iyo maamul fikradeed kasta oo aad wadid haddii aanay dadku wax weeyaan kugu soo hirinayn kugu soo dhawaanin cidna ka qaadi mayso
hogaamiye guuleystayna noqon maysid. intaasaynu ka baranaynaa xeerkan, waana xeer ilaahay subxaanahu watacaala inta koonku jiro jirsiinaya oo inoo ballan qaaday. cid kastoo inaga midna ay tahay waxa weeyaan inay markaas sidaasi ay u dhaqan geliso. kulanka kan ku xiga dhammaantiin intaan kula kulmi doono waxaan ku dhaafaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.